Subscribe saar halkan si aad u hesho muuqaal walba oo aan halkan soo gelino. Mahadsanid. waanan salaam asxaabay magacaygu waa Hodan waxaan jiraa 25 sano waxaan ka shaqeeyay isbitaalka dadka waalan maalin maalmaha kamid ah waxaan galay qol uu bukaan ku jiray kadibna waan la hadlay waxaan ku iri waan ku salaamay sidee tahay habeen dambe ayaan ka hadli doonaa si aan shaqadeena u sii wadno hadalkaas markii uu yiri waxay u muuqatay inuu la hadlayo qof mala awaal ah waxaan ku iri shaqadaas anigu ma qaban karaa maya adigu ma qaban kadib kadibna waxaan ogaaday in xaaladiisa ay la ildaran tahay xanuunka isla sheekaysiga iyo mala awaalka daran intii aan hawsha ku jirnay waxa dhacaysa waxaan yaqayla daran ka yeeray isbitaalka aniguna waxaan u soo cararay dhankii isbitaalka waxaan arkay kalkaalisadii oo ooynaysa kalkaalisadii ayaana qeylisay iyadoo cabsi la ooynaysa markii aan u tagay waxay ugu tiri ninkan waxa la helay isagoo lafgeed ah wadnaha uga taagan tahay midkiisana la helay goor dhaweyd markaas ayaan aqoonsaday qofka la dilay inuu yahay ninkii isbitaalka nadiifin jiray dadkuna waxay ka sheekaysanayeen sidii loo dilay kadibna waxaan u cararay meeshii uu shilka ka dhacay dadka oo dhan waxay la yaabanaayeen qaabka loo dilay ninka nadiifiyaha ahaa saxaafadii booliska ayaana dhacdada baaragay meeshana waxaa ka buuxay dad badan waxaana meel walba ka yeerayay sawaxan kadibna waxaan fadhiistay kursi u dhow meesha anigoo gariiraya waxaana iga socday dhidid fara badan markii aan eegay horteeda waxaan arkay bukaankii isbitaalka oo ii dhool cadeynaya wuxuuna bilaabay qosol tartiib ah aniguna ma garanayo goorta aan bilaabay ka biqitaanka isaga waxaan ogaansaday inaan aado qolkiisa waxaana soo aaday qolkiisa waxaana arkay isagoo weli la hadlayay qofkii mala awaalka ahaa isaguna aad buu dhool cadeynayay aniguna waxaan weydiiyay cidda uu la hadlayo iyo magaciisa balse wax jawaab ah ima siinin waxaana bilaabay inaan dhageysto waxa uu ku hadlayo waxaana maqlay isagoo leh waxba ma jiraan gurigeena si xun looma baarin kadibna waan ka tagay isaga waxaan u gudbay inaan u shaqeeyo bukaanada kale markii aan shaqada dhameeyay waqtigu wuxuu ahaa habeen dambe waxaan go'aansaday inaan isbitaalka ka baxo laakiin geed weyn ayaa indhahaygu qabteen oo ku yaala bartamaha barxadda waxaana maqlay codad iyo sawaxan ka yeeraya halkaas waxaana arkay dad badan oo ku socda mugdigaas kadibna waan aaday si aan u arko wax halkaas ka socda waxaana arkay dab ka baxaya halkaas iyo caruur ooynaysa iyo dad meesha jooga laakiin markii aan isirif si fiican u fiiri wax ayaa madaxayga ku dhacay waxaana ku dhacay dhulka waxaana waayay meeyirkayga